xaalada magaalooyinka beled xaawo iyo mandheera ee xadka Soomaaliya ee Kenya ayaa la soo sheegay in dhaqdhaqaaqyo ciidan halkaasi ka jiraan. Saraakiisha dowladdu waxay sheegayaan in saacadihii ugu dambeeyay iyo waliba labadii cishe ee ugu dambeysay halkaas ciidamo badan la geeyay. sarkaal ka mid ah saraakiisha dowladda ee ku sugan magaalada beled xaawo ee gobolka Sogod ayaa risaalo u sheegay in ciidamo badan oo laga keenay gobolka Jubbada Hoose degmooyinka ka kooban yahay kuwaas ay ka tallaabeen xadka una gudbeen dhanka Mandheera. waxaana la sheegay in ciidamadaasi ku sugan yihiin waa ciidamo ka mid ah kuwa Jubbaland ay ku sugeen magaalada Mandheera inay jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan halkaasi ka soconaya. waxaa sidoo kale la sheegay in iska horimaad kooban ciidamada Jubbaland oo ka baxay degmooyin ka mid ah Kudaa iyo meelo badan oo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose in al-shabaab ay wadada u galeen kuna dagaalameen meel u dhow xadka Mandheera. waxaase wararka qaar ay sheegayaan in ugu dambeyn ciidamadan ay ka gudbeen ayna galeen magaalada Mandheera halkaasi dhaqdhaqaaq ciidan ay ka wadaan. saraakiisha militariga dowladda oo ku sugan qaarkood beled xaawo ayaa xogta risaalo la wadaagay. Cornel Aadan Rufle oo ka mid ah saraakiisha militariga ayaa risaalo u sheegay sidan: degmooyinka Afmadow, Badhaadhe iyo Kismaayo ciidamo laga soo aruuriyay oo maleeshiyaadka murtadiqiinta ah ayaba ay tababaratay iyo ciidamada hoongaadka iyo la yiraahdo eebiga oo laga soo aruuriyay Dadaab meesha la yiraahdo Xagardheer, Kullan, Garseyka Bajaakale, Libooyo iyo Gaarisa laga soo aruuriyay in degmada Mandheera la keenay 800 oo kiiloomitir ilaa 1200 oo kiiloomitir qaarkood gudaha NFD ay Kenya soo marisay. Mandheerana ay caawa diyaar ku yihiin si ay dalkeena caragalad uga sameeyaan damacooda si ay weeyo marka xaqiiqada naftooda jirta waa sidaas. marka ciidamadaas aad sheegtay in Mandheera lagu diyaariyay ma beled xaawo ku soo wajahayeen adeer dalka Soomaaliya in la dulaysto oo dadka Soomaaliyeed la laayo weeyo toodkaas waa sida weeyo waa damacooda laakiin beled xaawo meel inta canaasiir loo soo aruuriyo caana laga dhama ma aha marka beled xaawo ay igala hadlaysaa marka ma baqdin cabsi miyaa jirto oo dagaal ah oo halkaas suurtagal inuu ka dhaco adeer baqdin ilaahay baa nagu leh annaga iyo shacabka iyo wala yaraatay wax baqdin iyo cabsi aan hayaan laakiin cadawgan waa naqaanaa meesha hadba meesha uu soo marayo hadda meesha uu ku sugan yahay iyo dabciisa beentaada dad og baana laakiin waxaa sheegtay in ciidamo badan oo Kudaa iyo Jubbada Hoose laga keenay hadda beled Mandheera la geeyay halkaana ay isku aruursanayaan marka soo saarsan colaadeed ma muuqato. su-aasha jawaabteeda waxaa weeye cabsi ilaahay baa nagu leh dad canaasiir oo ay gaalada cawaanka soo abaabushay ayadaba anagu kama cabsoonayna ciidaan leenahay marka laakiin saansaanta muuqato beled xaawo maan mid dagaal huraysa adeer duulaad baa lagu soo yahay ciidda Soomaaliyeed waa lagu soo duulay annagu inaan difaacno xaq baan u leenahay laakiin ma aha inaan cabsoonayna taa macnaheeda. Cornel Aadan Rufle oo ka mid ah saraakiisha militariga dowladda ee ku sugan beled xaawo kaasi ahaa oo nala hadlay xalay oo aan wax ka weydiinay xiisada Mandheera iyo beled xaawo ka jirtay ciidamadan badan ee Jubbaland halkaasi gaaray kuwaas oo laga keenay degmooyin ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. weli ma jirto dhanka kale isku day badan aan la xiriirnay ama ku baaday goobno xubnaha Jubbaland inaan wax kaga weydiinay arrintan hase yeeshee badankood waa ay diideen inay ka hadlaan kuwana saraakiishaduna way ka gaabsadeen in faahfaahin dheeri ay ka bixiyaan warbixintan la xiriirta ciidamadan badan oo laga kala keenay gobolka Jubbada Hoose ee ka tallaabay xadka. haddaba iyadoo sidaas ay tahay ayaa xildhibaan ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya lagu magacaabo Daahir Amiin Jesow waxa uu ka digaya xiisada weli ka jirta Mandheera isagoo sheegay in wax walba halkaasi ka dhacay mas'uuliyadda ay qaadanayso dowladda Kenya. Jakarta ayaa dhameystiray. xildhibaan Daahir Amiin Jesow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in xiisada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya iyo dagaalkii ka dhacay xuduudka uu saameyn ku leeyahay muranka badda ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. xildhibaanka oo qayb galay barnaamij ka baxay idaacadda BBC-da waxa uu sheegay in Kenya si cad ugu soo xadgudubtay Soomaaliya isla markaana ay hubeynayso koox jabhad ah oo la jeeday ciidamada hogaaminaya Cabdirashiid Jan sida uu hadal ku dhigay. sidoo kale xildhibaanka waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay dhowr mar Kenya uga digtay inay joojiso faragelin uu sheegay inay ku hayso arrimaha Soomaaliya balse ay dheg jalaq u siinin isagoo sheegay wax kasta ee ka dhaca dhanka xadka ee gaara labada shacab ee Soomaalida ah ee
ku kala nool magaalooyinka beled xaawo iyo mandheera ay mas-uuliyadeeda qaadayso dowladda Kenya. waa waadax waaye waxa muxuu ahay xadka ka socdo sidaad la socotaba arrintii badda ayaan anagu aragnaa inay daba taagan tahay barashar ay saarayso dowladda Soomaaliya dowladda Kenya ayaan u aragnaa tan ugu daran oo aan runtii aan dhihi karo waliba damiinimo ayaa keenayso waxa weeye in xadkii Mandheera iyo muxuu ahay beled xaawo in jabhad lagu aasaaso oo aad arkayseen inuu dagaal ka dhacay oo shacabkii labada dhinacba ay wax ku noqdeen marka anigu waxaan qabaa arrintan oo dhan waxay daba socotaa arrintii badda xildhibaanadii reer Mandheera iyo Wajeer waad maqlayseen waxa afkooda ka dhacay in ay lahaayeen nin ka fakada cadaaladda oo wadankooda soo galay oo dowladda Soomaaliya baacsanayso hanagala celiyo halka waxa weeye dowladda Kenya oo aqoonsato muxuu ahay in Soomaaliya iyo iyada ay diris yihiin inayna isku eegin maraayid weyn ayna isku eegin oo inay murqo weyn tahay oo soo arkin waayo Soomaaliya murqo weyni iyo murqo yiri midna wax loogama qaado dowladda Kenya xiriirka ay wanaajin wayso oo anaga waa jecelnahay inaan wanaajinay waxa weeye dacartii cabta ayaan la cabaynaa. xiriirka u dhaxeeyay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa bilii la soo dhaafay markaasi aad xumaaday tan iyo markii doorashadii markaasi dib lagu doortay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Isla Axmed magaalada Kismaayo oo dad badan aaminsan yihiin inay taageero weysiinayso dowladda Kenya iyo waliba wixii ka dambeeyay markii dagaal u dhaxeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo uu hogaamiyo wasiirka amniga Jubbaland oo baxsad ka ah dowladda uu ka dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka beled xaawo iyo waliba Mandheera oo ah xadka Soomaaliya iyo Kenya hayeeshee waxaa jirtay in dhawaan dowladda Kenya ay wafdi hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha dalka ay u soo dirtay Muqdisho isla markaana wada hadal kooban la yeeshay madaxweyne Farmaajo kaas oo madaxweynaha Soomaaliya la filayo inuu dhawaan u amabaxo magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya halkaasna uu wada hadalo arrinta khilaafka taagan lagu xalinayo oo kala yeesho dhigiisa dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta waxaana halkaas ku sugan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo hordhaca wafdiga la filayo madaxweyne Farmaajo inuu ka tagaan magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya. qodobada kale ee wararkana ku jira waxaa qaybka xildhibaanada Galmudug ayaa isku khilaafay qodobo kamid ah dastuurka Galmudug kaas oo qeexaya xubnaha ka mid noqonaya ama sida loogu mid noqonayo golaha wasiirada haddii ay doonayaan xildhibaanada qudhooda ay noqdaan wasiiro. xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi Galmudug ayaa dood adag ka yeeshay gudahooda loola soo gudbiyay guddoonka codsi ku saabsan in la meel mariyo wax ka bedel lagu sameynayo qodobka 30 dastuurka Galmudug oo dhigaya in xubnaha baarlamaanka ka mid noqonaya waa in xubnaha baarlamaanka inaysan qayb ka noqon golaha wasiirada. xildhibaano ka badan 20 mudane ayaa qaba in xildhibaanada aysan ka mid noqon golaha wasiirada badise wasiirada laga keeno banaanka. waxaa jiray xildhibaano badan oo kasoo horjeeda talaabadaas maaragtaas kuwaas oo qaba in xildhibaanada qudhooda ay noqdaan wasiirada. kulanka oo ay xaadir ahayeen 48 mudane ayaa waxaa shir gudoominaya gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal iyo waliba ku-xigeenadiisa koobaad iyo labaad waxaana dooda ugu badan ay ku kala aragti fogaayeen xubnaha baarlamaanka waxaana badi loo cuskanaya qodobkaasi in wax badan laga bedelo maadaama xildhibaanada qaarkood ay soo jeedinayaan in ka mid noqoshada golaha wasiirada xildhibaanada ay keeni doonto la xisaabtan la-aan dowladda saa darteedna ay badankood xildhibaanada ay soo jeediyeen in golaha wasiirada laga dhigo dad banaanka laga keenay halka tiro ayna aan sahlanayn oo aad u badan xildhibaana ayaa qaba in fursad la siiyo xildhibaanada oo ay wasiiro ay noqdaan. dooda ayaa ahayd mid ugu dambeyn aan meelna u dhicin lagu kala tagay maalinta Sabtida ayaana mar kale lagu madalsan yahay in magaalada Dhuusamareeb ay doodan laga ambaqaado ugu dambeynna cod loo qaado. wararka la xiriira tobrihi Arsenal Mikel Arteta iyo waliba antiviruska coronavirus laga helay Turkiga ayna xaalada degdeg ah ku dhawaaqeen eegi doonaa asayeesha wararka kale gudaha waxaa ka mid ah duqa magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in la xisaabtami doonaan hay'adaha samafal ee ka howlgala caasimada kuwaas oo sheegay in badankood aan la ogeyn howlaha ay Muqdisho ay ka qabtaan. maxamed Bootaan Masraya
maamulka gobolka banaadir Cumar Filish oo ka hadlay hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa localka ah oo deeqaha ka baxshay gobolka banaadir kuwaas oo baalmara maamulka ayaa waxa uu sheegay inay ka baaqsadaan hay'adaha caalamiga iyo kuwa localka ah ee u shaqeeya qaabka dhuumaaleysi isla markaana waxyaabaha ay ka fulinayaan gobolka ee noqoto wax maamulku og yahay ee ku dadaalaan inay iska soo diiwaan geliyaan si loogu xisaabtamo habka ay u baxsheen deeqahooda hay'adii baalmartana ayuu gudoomiyaha waxa uu sheegay inay u aqoonsanayaan hay'ad sharciga jabisay hay-adaha ka shaqeeya laftooda inaysan wax coordination ama xiriira inayan lahayn oo hay-ad walbaba oo cidday mucaraf leeda ay toos u contact garaysa la xiriirto ay sidaa ula tacaamusho oo nidaam hufan oo qaab maamul oo jaan go-an inuusan jirin haddaba ujeeddada wacahaana waxay ahayd hay-adaha internationalka ah ee adeegyada caafimaad ka bixiya gobolka banaadir iyo maamulka gobolka banaadiri tallaabooyinka iyo adeegyada la qabanayo si isla mid ah oo iska warqaba inay u qaadaan hay-addu waxa ay ugu tala gashay inay u qabato yacni bulshada gobolka banaadir inay kala xaajooto maamulka gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir isagoo gudanayo mas-uuliyaddiisa uu gaarsiiyo ama uu tilmaam ka bixiyo meesha looga baahan yahay adeegaas meesha looga baahan yahay kadibna uu kormeer ku sameeyo adeegii loo diray yacni degme hebel ama waa hebel ma gaaray hadduu gaarayse sidee u gaaray yaa ka faa'iidaystay waxaasoo dhan riboorradeed yacni in la diiwaan geliyo wax la ogyahay ay noqoto hay-aduhu ha ahaadeen kuwa NGO-yada oo maxalliga ama kuwa internationalka maxalli waxa waaye kuwa oo dalka ama localka dheh iyo kuwa internationalka waxaa waxyaabaha looga baahan yahay waxaa ka mid ah inay maamulka gobolka banaadir ay la soo xiriiraan ay yacni iska diiwaangeliyaan xarunta maamulka hay-ad u qaabishana jirta diiwaangelinta hay'ado badan oo deeqa baxsha ayaa si wanaagsan u baxsha deeqahooda isla markaana aan gaarsiinin dadkii mudnaa deeqda waagaage markan wararka coronavirus ayaan eegi doonaa iyo weliba saameynta caalamka cudurkan uu ku yeelanayo oo hadda si weyn looga qaylinayo waxaana la tilmaamayaa saameynta ugu weyn markan uu ku yeesho wadamada dhaca qaaradda Yurub tobabaro koox ka dheela horyaalka Premier League ayaa laga helay viruska coronavirus waana tobabaraha kooxda Arsenal tan oo qatar weyn ku ah marka loo eego ciyaaraha horyaalka Premier League kooxda Arsenal ayaa laga joojiyay tababarka ay qaadan jireen iyadoo ciyaartoyda iyo waliba macallimiinta badankoodna la siiyay fursad lagu karantiilayo maadaama la doonay in cudurkan uu ku sii baaho gudaha dalka maanta Jimco ah waxaa la qaban doonaa shir degdeg ah oo lagu arinsanayo kulamada horyaalka Premier League ka harsan tani waa niyad balse waxaan isbaareynaa waan hubinaynaa caafimaadkiina ayuu yiri Mikel Arteta oo tababaraha kooxda Arsenal waxaan si dhaqsi ah u bilaabi doonaa shaqadeena markii caafimaadkeenu uu fiicnaado laakiin waa inaan hadda joojinaa ayuu yiri Arteta oo laga soo xigtay warbixinadan waxaa la filayaa in tiro badan oo isugu jira ciyaaryahanno iyo waliba kooxo shaqaalo iyo macallimiinba la karantiilo kooxda Arsenal kamida kuwaas oo hadda cudurka laga helayo caafimaadka dadkan iyo guud ahaanba bulshada ayaa muhiim u ah taas oo annagana aan diiradda saarina ayuu yiri Final Fantasy oo ah maamulka sare ee kooxda Arsenal waxaan kula jirnaa wada hadal dadka ay arintani qusayso si aan uga xalino ama sida ugu habboon aan sameeyno haddii shaqadayda caafimaadka waa xubnaha shaqaalaha caafimaadka ay noo ogolaadaan caafimaadkiina uu noqdo mid aad u wanaagsan waa sidaan rabnay laakiin waa iskarantiili doonaa ayuu yiri Arteta Arsenal ayaa lagu wadaa inay la ciyaarto maalinimada Sabtida ay soo socto kooxda Brighton ciyaar kamid ah horyaalka Premier League laakiin tani ayaa u muuqata mid baaqan karta maadaama kooxda Arsenal badi ciyaaryahanadooda hadda laga helay calaa astaamado muujinaya cudurka coronavirus ciyaartoyda dhanka waa ciyaaryahan dhanka daafaca ka dhigay kooxda Man City liirada Benjamin ayaa asna iskarantiilay kadib markii qof kamida qoyskiisa laga helay calaamadaha coronavirus
saddex ka mid a ciyaartooyda kooxda Leicester City ayaa ayna laga helay astaamaha coronavirus taasoo muujinaysa in horyaalka Premier League kooxaha ka dheela in si weyn cudurkan ugu fiday tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta cudurkan laga helay ayaa sabab u noqon kara in isbedel ku yimaado horyaalka Premier League. ugu dambeyn dowladda Turkiga waxay ku dhawaaqday go'aamo looga hortagayo coronavirus xaalado degdeg ah ayay dowladdu sheegtay in la gelin doono qaybo badan oo kamid ah magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi. dowladda Turkiga ayaa sheegtay in dowladda go'aan ay ka gaartay laga bilaabo 16 bishan fasax la geli doono muddo 3 toddobaad ah iskuulada iyo jaamacadaha waaweyn ee wadankaasi Turkiga. dowladdu waxa ay sheegtay in xaalad degdeg ay ku soo rogi doonaan magaalooyinka waaweyn Istanbul, Ankara iyo meelaha kale ee Turkidu aad ugu badan tahay. waxa ay sheegtay in la qaali doono talaabadan oo looga dan leeyahay ka hortagida faafidda caabuqan corona intuusan soo gaarin caasimadaha waaweyn ee wadankaasi Turkiga. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa markii ugu horeysay waxay ku dhawaaqday in caabuqa corona uu yahay musiibo caalami ah. WHO ayaa muddo isha ku haysay dhaqdhaqaaqyada cudurkan iyo sida degdega ah ee ku sii fidaya adduunyada oo dhan waxayna ugu dambeyn warbixinta soo saartay ku shaacisay in musiibo uu yahay cudurkan. ururka caafimaadka adduunka ayaa shalay ku dhawaaqay in haatan uu in ka badan 120,000 oo kiisas ah oo COVID-19 ama cudurka coronavirus loo yaqaano oo hadda sababay viruskan wuxuuna ku baahay 114 dal oo adduunyada ah oo viruskan kiisaskiisa laga helay sida warbixinta ugu dambeysay hay-addu ay soo saartay.